السلام عليكم كسو دو جنال عبد الله بلديني maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamijkeena aha Madoonisa inaan baratid oo aan maanta uga hadlayno faculty-ga Computer Science and Engineering. Madoonisa inaad baratid Computer Science and Engineering. Computer Science ka maanta waxaan dhihi karaa waa kulliyad adduunka dhan u baahan yahay waayo adduunkan hadda aan joogno waa adduun digital wada noqday wax walba dukaanada yarka ay maanta waxay ku shaqeeyaan computer marka waa kulliyad fiican oo aan isdhihi karo maanta waxay ku jirtaa kulliyadaha hogaamiyo kulliyadaha adduunka marka haddii aad jeceshahay inaad baratid Computer Science and Engineering waxaa jira maadooyin lagaaga baahan yahay inaad ku fiican tahay inta aad bilaabin ka hor maadooyinkaas waxaa ka mid ah xisaabta physics-ka iyo basic computer-ka ama asaasiga computer-ka tusaale ahaan sida computer-ka loo isticmaalo oo kale aad taqaanid Microsoft Word, Excel iyo PowerPoint iyo wixii lamid ah oo basic computer-iska kadib markii aad bilowday jaamacadda sida faculty walba ama kulliyad walba ay leedahay maadooyinka ku dhigi doonto waxaan kala qaadaynaa laba qaybood qaybta koobaad oo ah general courses waa maadooyin aan course-kaaga la xiriirin laakiin nolosha kale inta la xiriiro marka general courses-ka aad ku qaadanaysid jaamacadda waxaa ka mid ah diini taariikh juqraafi English oo ah asina luqad muhiim ah basic accounting principles of economics basic management law and ethics in engineering practice iyo wixii lamid ah xisaabta aad ku dhiganaysid ama aad ku baranaysid Computer Science and Engineering waxa kamid ah ugu muhiimsan kuwan soo socda linear algebra and coordinate geometry differential and integral calculus statistics and probability differential equation and factor analysis complex variables and transforms discrete mathematics physics-ka aad ku baran doontid Computer Science and Engineering waxa ugu muhiimsan kuwan soo socda waves and oscillations electricity and magnetism thermodynamics iyo wixii lamid ah qaybta labaad ee maadooyinka aad ku baran doontid Computer Science and Engineering waxaan u bixinay qaybta core courses-ka core courses-ka waa maadooyinka caadiga ah ee loogu talagalay qofka computer-ka inuu ku fiican yahay grade fiican ka haysto marka core courses-ka ugu muhiimsan waxa kamid ah kuwan soo socda introduction to computer system structured programming oo ah C programming digital system data structures electronic devices and circuits object oriented programming waxa la isku yiraahdo kuwaas oo la isku yiraahdo C++, C#, Java, PHP iyo wixii lamid ah algorithm design and analysis numerical methods microcontrollers microprocessors and assembly language operating system database management system computer networks computer graphics and multimedia artificial intelligence and neural networks software engineering management information system MIS system programming image processing e-commerce and web engineering wireless networks iyo wixii lamid ah majorada ugu muhiimsan ee aad hadhow markii aad computer science baratid aad major ka dhigi kartid waxa kamid ah kuwan soo socda networking and communication programming oo hadhow aad u shaqeyn karto si software engineer ahaan digital signal processing oo ayadana maadada muhiim ah internet of things ama wax la yiraahdo IoT oo ayadana oo waxyaabaha mustaqbalka adduunka dhan ku shaqeyn doona kamid ah artificial intelligence iyo wixii lamid ah aad baad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddii aad muuqaalka ka hesho like saar commentigana faalada asxaabtaada ugu yeer sidoo kale dhanka commentiga waxaad nagu wadaagtaa faculty-ga aad jeceshahay inaan muuqaalka kan xiga kusoo gudbino muuqaalkeena intaas uu ku egyahay inta aan ku kulmayno muuqaalka kan xiga waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum